sanadkan aad loogu deyrinayo ka mid noqoshada xubnaha u badan saraakiisha ee qaybta ka noqonaya baarlamanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa haatan waxaa la qorsheenayaa in sidoo kale baarlamanka ay qayb ka noqdaan saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo doonaya in kuraasta baarlamanka qaarkood ay ku soo baxaan waxaana garab arinkani ku siinaya sida la sheegay filla Soomaaliya. Horey Saadiq John iyo General Yaasiin Farey ayaa kuraas loo sii xiray ku guuleystay oo qayb sidaasi uga noqday baarlamanka 11aad ee Soomaaliya. General Yusuf Indha Cadde iyo saraakiil kale waxaa lagu wadaa in tartan ay galaan maadaama horey ay u sii shaaciyeen inay yihiin musharaxiin u taagan Korneel Cusmaan Xaadoole gudoomiyihii hore ee degmada Balcad iyo Korneel Mukhtaar Xasan Tiifow Sheekh Macabe oo ah banduulaha guutada afraad qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka ayaa iyaguna sanadkan musharaxiin xildhibaan ah. intaasi in kale oo aan weli soo shaabixin musharaxnimadooda balse saraakiil ciidan ah ayaa baarlamanka isku soo taagaya si ay xildhibaan u noqdaan. saraakiishii qaybta ka ahaa kacdoonka badbaado qaran ee muddo kordhintii farmaajo ka soo horjeestay ayaa hadda xildhibaannimo doontay waxaana lagu micneeyey inay ka soo horjeedaan dib u soo laabashada xukunka madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. balse Cali Yare gudoomiyaha degmada Warta Nabadda iyo gudoomiyaha degmada Daynile Jaafar iyo Zeynab Xabsey oo iyaguna xildhibaannimo ku haminaya ayaa golaha shacabka sanadkan ku soo socda waxayna ka dhigi doontaa haddii ay guuleystaan shakhsiyaadkan mid weji kale u yeeli doona kalfadhiyada ay yeelan doonaan baarlamanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. cidda calfan doonta lama oga kuraasta qaar oo weli kor loo hayo kuwa oo yaala Galmudug iyo Hirshabelle oo ay adkaan doonto sida lagu kala guuleysto maadaama shakhsiyaad mucaarad iyo muxaafad ahba isha ay ku wada hayaan. waxaana baarlamanka sanadkan sida la sheegay u badan saraakiil ciidan taasoo la micno ah in baarlamankii 10aad kani wax badan uu ka duwan yahay isla markaana laga dayrinayo sida xaalku noqon doono baarlamankan markii la soo dhamaystiro. dowladda isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa xilligan qorsheynaysa in magaalada Abu Dhabi ee isku tagga Imaaraadka Carabta ay ku wada kulansiiso ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble oo haatan ku sugan halkaasi iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe. dhaxal sugaha Abu Dhabi Amir Maxamed bin Sayid ayaa soo gaarsiiyay xafiisyada ra'iisul wasaaraha oo haatan ku sugan magaalada Abu Dhabi Saciid Cabdullaahi Dani Axmed Madoobe. dambaalkan oo ahaa mid casuumada ayaa la xiriiray in dabayaaqada Janaayo ay yimaadaan Dubai si ay ugala xaajoodaan arrimaha doorashooyinka dalka ee haatan ka soconaya gudaha dalka Soomaaliya. ila wareedil ugu kalsoon yahay ayaa sheegay in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay saacadaha soo socda iyaguna ka duuli doonaan garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee dalka Kenya isla markaana ay gaari doonaan magaalada Abu Dhabi si halkaasi kulan ay ula yeeshaan dhaxal sugaha Dubai. warar ayaa sheegaya in dhaxal sugaha Dubai uu kala hadli doono ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland in si dhammaystiran loo dhiso musharax madaxweyne dowladda federaalka Soomaaliya oo ay wadato dowladda isku tagga Imaaraadka Carabta kaasoo loo badinayay inuu yahay Saciid Cabdullaahi Dani ayna diyaar u tahay dowladda dalkaasi in dhaqaalaha ku kacaya intuu doonaha la ekaade ay bixiso. Saciid Cabdullaahi Dani hogaamiyaha Puntland ayaa taageero buuxda ku aadan musharaxnimadiisa ka helay dowladda Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale dowladda Kenya oo muddo diidanayd. waxaana haatan meesha ka baxay musharaxiintii dowladda Imaaraadka Carabta ay isha ku haysay oo ay ka mid yihiin Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo kuwa kale. si kastaba socdaalka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay ku tagayaan Dubai oo ku sugan yahay ra'iisul
ra'iisul wasaaraha dalkii wafdigu hogaaminayo ayaa dadka odorasa siyaasadda waxay sheegayaan in tani marxalad cusub ay gelin karto xaaladda siyaasadeed ee haatan dalku ku guda jiro xilli doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya haatan si rasmi ah uga bilowdeen qaybo ka mid ah gudaha dalka oo xarumaha dowlad goboleedyada Muqdishoba ay ugu horeeyaan iyadoona la qorsheynayo in 45 cisho gudahooda lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka isla markaana 25 Febraayo gabi ahaanba la soo dhameystiro doorashada xildhibaanada golaha shacabka si loo gudagalo midda muhiimka isha lagu wada hayo ee madaxweynaha 4 sano ee soo socota hogaamin doona dalkan. daawadayaal waxaa daawanaysaan warka sirta media qeybihiisii hore markan haddii aynu eegno wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ee Puntland ayaa ku waramaya in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ay guddoonka baarlamaankaasi ka dalbadeen in kulan degdeg ah la isugu yeero xildhibaanada isla markaana looga arinsado xaaladda Puntland. xildhibaanadan oo u badan kuwa mucaaradsan xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sida wararku ay sheegayaan waxay diyaariyeen mooshin aan weli wax faahfaahin laga helin ujeedkiisa. xildhibaanada qaarkood oo si hoose warbaahinta ula xiriira ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda jirta isla markaana ay doonayaan in Puntland la badbaadiyo. xildhibaanada ayaa damacsan sida la sheegay inay turaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyagoona sheegay inuu safaro maalayacni ku bixinayo Kenya isla markaana haatan isku diyaarinayo in dalka Imaaraadka Carabta uu gaaro. Puntland ayaa waxaa la soo darsay amni darro baahsan iyadoona maciishadu ay qaaliyowday taasoo dadku ay u sababeynayaan maamul xumida dhanka dhaqaalaha ee Saciid Cabdullaahi Dani. sidoo kale waxay sheegayaan in guddoonka baarlamaanka aysan weli aqbalin codsiga ka yimid xildhibaanadan u badan kuwa mucaaradsan hogaamiyaha xukuumadda Puntland isla markaana doonaya in fadhi degdeg laga yeesho xaaladda Puntland oo mooshin ka dhana Saciid Cabdullaahi Dani haatan sida wararku ay sheegayaan ay gacanta u galiyeen guddoonka baarlamaanka waxaana soconaya kulamo xasaasiya oo looga arinsanayo mooshinkan ay soo gudbiyeen xildhibaanadan oo tiradooda lagu sheegay ilaa iyo 28 xildhibaan maadaama ay u badan yihiin sida la sheegay kuwa mucaaradsan Saciid Cabdullaahi Dani. Saciid Cabdullaahi Dani xukuumaddiisa ayaana ka war heshay mooshinkan hogaamiyahooda laga wado iyadoona haatan golaha wasiirada Puntland kulan degdeg ah isugu yeeray madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Karaash oo uga arinsanayaan sida laga yeelayo ama loo qaboojin karo mooshinka haatan guddoonka baarlamaanka Puntland uu gacanta ku hayo. warar hoose oo helaya waxayna tibaaxayaan in Saciid Cabdullaahi Dani khadka teleefanka uu kula soo xiriiray guddoonka baarlamaanka Puntland isla markaana uu ku wargeliyay inuusan qaban karin wax mooshinah isagoona ka codsaday intuu dib ugu soo laabanayo magaalada Garowe in mooshinkaasi aan la guda gelin oo gacanta ku hayo isla markaana uu doonayo markii uu dib ugu soo laabto gudaha Puntland in xildhibaanadaasi kulan degdeg ah uu la yeesho isagoona sida la sheegay qorsheynaya in lacag badan uu ku aamusiyo xildhibaanada haatan qorsheynaya in mooshin ay ka keenaan. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wuxuu haatan qorsheynaya inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaan lagu wada in doorashadiisa ka qabsanto gudaha dalka Soomaaliya. lamana ogo sida uu xalin doono mooshinkan kaga imaanaya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland iyo waxa uu ka yeeli doono. wixii war ka soo kordha arrinkan waxaad ku daawan doontaan wararkayaga dambe hadduu Allah awood leh raali ka noqdo daawadayaal. markan haddii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa magacaabay qaar ka mid ah xubno cusub oo ka mid noqonaya golihiisa wasiirada. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxaa wasiirka dekedaha iyo gaadiidka Koonfur Galbeed loogu magacaabay Aweys Xuseen Macalin waxaana xilkan hore u hayay Xasan Xuseen Maxamed Eelaay oo dhawaan loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka. sidoo kale wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ayaa waxaa loo magacaabay Cabdullaahi Sheekh Daahir Muxudiin halka wasiirka kalluumaysiga Koonfur Galbeed loo magacaabay Cabdullaahi Cabdi Cumar. guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo afmeeraya warkii aad ka daawanayseen janalka Sirta Media tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Media.